السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآية ممانتا حن بلابي دونا كتاب كياها العربية بين يديك جزء كيسي لباد كتابك وحكوكو بين سدح جزء هل جزء هراء أيان سوق هذا النهي مانتا حن بلابي دونا جزء كي لباد 10 كيسي كواد dariiqada aan ku socon doonaana waxay noqonaysaa dariiqadeeni hore oo ahayd inaan akhrino oo kaliya intaas waxa weeye darsigu yahay oo aynan u guda galin tamriinaad iyo laylisiyo iyo waxyaabo la mid ah aynan sii guda galin iyo sharaxaad dheer marka casharkeeni ayaan iska bilaaban doonaa alwaxdatu alula waa cutubkii koowaad العناية بالصحة وحكو سابسن يهي داناينتا لدانيو عافيماتك أما الدريالك عافيمات أيكو سابسن يهي 10 كعوان كيسو يهي الوحدة الأولى في العسل شفاء الدرس الأول و10 كيكوات عوان كيسو نوحو يهي في العسل شفاء ملبك وحا كتيرا عافيمات أيا كتيرا وحا شكيسانا ودا شكيسانا وكدحيا laba wiil oo midna la dhaho Xaazim midna la dhaho Aamir Xaazim wuxuu yiri amaridun anta miyaad jiran tahay adigu Aamir wuxuu yiri nacam ha ashcuru waxaan dareemayaa bi alaamin xanuuno shadiidatin daran fil ma'idati waxaan ka dareemayaa caloosha ayaan ka dareemayaa Xaazim wuxuu yiri hal dahabta ma aaday ila tabibi dhakhtarka ma aaday Aamir wuxuu yiri la maya lam adhab ma aanan aadin ila tabibi dhakhtarka ma aanan aadin ولم أتناول ما أنا قادنين أي دواء وحدة وما أنا قادنين وما أنا عنين حازم وحيري هل سمعت ما مقشي قصة السحابي سحابي كشي كديسي الذي كاسو عالجه الرسول نبي وكداوي صلى الله عليه وسلم حديثي نبي نبي كركي سهاته بالعسل وملبك وكداوي ما مقشي شيء كديس هل سمعت ما مقشي قصة السحابي الذي عالجه الرسول بالعسل سحابي وحوي النبي وكداوي ملبك شيء كديس ما مقشي بكويني عندما اشتكى مركي وشيكتي من بطنه علوشي سو كشيكتي مركي وكجردي علوش وكجردي عامر وحولي لا مايا لم أسمع ما أنا مقلبيها شيء كذا أسمع أنا مقلين حازم حولي لقد أمر الرسول النبي وحامر صلى الله عليه وسلم حديث النبي قال كل ساعته أخ المريض كي جرنا ولالك أيوحو أمري أن يسقيه إن ورابي عسلا مرب عامر وحولي وهل شوفيا ما العافية مبكسدي معافي ماذي حازم حولي نعم ها بعد أن سقاه إنت ورابي كذب 4 مرات أفرشير عامر وحولي العسل ما ملبكي أي ورابي سبحان الله إلهي بحمانك هفن حازم حولي نعم ها العسل ملبكي أي ورابي ملبكي أي وعبسي قال تعالى إلهي وحولي فيه شفاء للناس فيه وها ملبك كسغا شفاء للناس ملبك دتك وحوية waxaa ugu sugan caafimaad ayaa ugu sugan Aamir wuxuu yiri saatanaawalu al-asala malabki ayaan qaadanaya oo aan cabaya mithla hada saxaabi sida saxaabigaas oo kale Xaazim wuxuu yiri tuujadu waxaa la helaa maxallaatun meelo kathiiratun farabadan libay'i al-asali oo lagu iibiyo asalka fi suuq al-markazi waxayna ku yaaliin suuqa dhexe ay ku yaaliin Aamir wuxuu yiri saadhabu al-aana hadirta ayaan aadaya ilaa hunaka إلى هناك هالكاس وأشتري العسل ملبكنا وصوغدنا يا حازم حول شفاك الله إلهك عافيه وياي الوحدة الأولى الدرس الثاني و10 كيلوات وحدة دي كواد زينب ومريم لبضع قبضات من لده زينب من لده مريم صديقاني ولبا صاحب تهيئة ودير قروم فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية كفكر كجوابي كجوابي سيد سؤالها كان سو سعده ساد uga jawaabi lahayd su'aalaha soo socda ka fakar maada tafcalu maxaad samaysaa idaa arata markaad doontid an takuna naxiifan inaad noqotid mid caata ah labo maada tafcalu maxaad samaysaa idaa arata markii aad doontid an takuna samiinan inaad noqotid
mid caylan amaba buuran ayuhumaa kee ayaad tufadilu door bidaa amaba jeceshahay an takuuna inaad ahaatid naxiifan mid caataa am samiinan mise mid caylan ma dacaam maxay tahay cuntada alladii taasoo taakuluha aad cuntid kathiiran in fara badan zaynab waxay tiri zaynab wa maryam zaynab iyo wa maryam labadaa gabdhood sidiiqaani waa laba saaxiib tatashaabahaani waxay sooga egyihiin fi ashyaa'in kathiira waxyaabo fara badan fahumaa taskunaani waxay degan yihiin labadoodu fi xayin waaxidin hal xaafad wa tadrusaani waxay bartaan fi jaamicatin waaxidatin hal jaamacad oo keliya walaakinahumaa hase yeeshe labadoodu takhtalifaani waxay ku kala duwan yihiin fi amrin aakhara arrin kale fa zaynabu gabadha zaynab la yidhaahdo naxiifatun jiddan aad ayay caata u tahay wa maryamu gabadha maryam la dhahana samiinatun way caylan tahay jiddan aad bayna u caylan tahay turiiddu waxay doonaysaa zaynabu gabadha zaynab la dhaho an takuuna inay noqoto samiinatan mid caylan walaakinahaa hase yeeshee laa tastadiicu ma awoodo wa turiidu maryamu maryana waxay rabtaa an takuuna inay noqoto naxiifatan mid caata ah walaakinahaa hase yeeshee laa tastadiicu ma awoodo oo ma karto zaynab gabadha la dhaho tufakiru waxay ku fakaraysaa tufakiru kathiiran waxay in badan ku fakartaa fi hadihi lmushkilati mushkiladatan haysata maadaa tafcalu maxay samaysaa waayahay mushkilada haysata oo ah ayay ka fakartaa in badan oo ah caylan caatanimada wasnuhaa miisaankeedu al'aan hadeerto 55 kiilo waa 55 kiilo kayfa tuziidu wasnaha waxay ka fakartaa see ayay u kordhisaa miisaankeeda yajibu waxaa waajiba an yasila wasnuhaa miisaankeedu inuu gaadho ilaa 70 kaylan 70 kiilo xaawalat zaynabu zaynab way isku daday waxaawalat wayna isku daday walaakinahaa hase yeeshee lam tanjax kuma aysan guulaysan akhadat waxay gudagashay zaynab gabadha la dhaho tatanaawalu inay qaadato kathiiran in fara badan oo min atacaami cuntadii ah cuntada ka tirsan ta'kulu waxay cuntaa allaxma hilibka waalkhubza iyo kimista amaba sabaayada amaba rooti wixii dhahdidba walbayda iyo waxa weeye ukunta walaruza iyo bariiska waljubna iyo farmaajada caanaha la fadhiisiyey walcasala iyo waxa weeye malabka walxalwa iyo xalwada walmurabbi iyo jaamka waxaa la dhahaa murabbigu waa kan la marsado rootida oo guduudka ah ayaa waxaa la dhahaa murabbi waaya walmurabbi iyo jaamka watashrabu alxaliiba xaliibkana waa ay cabtaa وعصير الفواكه iyo khudaarta waxa weeye casiirkii iyo juuskii laga meeray lam tumaaris ma aysan samaynin zaynabu gabadha la dhaho arriyaadata wax jimicsiya ma aysan samayn waraqma dhalika iyadoo arrintaasi ay jirto dallat waxay ahaatay naxiifatan mid caata ayay ahaatay maada tafcalu maxay samaysaa akalat way cuntay kathiiran in fara badan wa sharibat way cabtay kathiiran in fara badan walaakinahaa hase yeeshee dallat waxay ahaatay naxiifatan mid caata ah amaba weyd ah takhtalifu mushkilatu maryam mushkiladda iyo dhibaatada haysata maryam way ka duwan tahay ama ka gedisan tahay can mushkilati zaynab gabadha la dhaho zaynab fa maryamu gabadha maryam la dhaho samiinatun jiddan aad bay u caylan tahay amaba u buuran tahay wa turiidu waxay doonaysaa an takuuna inay noqoto naxiifatan mid caata ah wasnuhaa miisaankeedu al'aan hadeerto 90 kaylan waa 90 kiilo weeye kayfa yanqusu wasnuhaa see ayuu u nusqaamaa ayay ku fakaraysaa wasnuhaa see uu u nusqaamaa miisaankeeda ayay ku fakaraysaa yajibu waxaa waajiba an yansila wasnuhaa miisaankeedu inuu gaadho ilaa 70 kaylan 70 kiilo tarakat waxay ka tagtay maryamu gabadha maryam la dhaho assukariyaat waxyaabaha macmacaanka ayay ka tagtay waayahay wannashawiyaat iyo waxyaabaha laga helo carbonhydrate-ka amaba tabarta laga helo wamaarasat waxay samaysay arriyaadata jimicsigii shahran hal bil ayay samaysay lam tastadic maryamu maryam ma aysan awoodin waxa weeye inay noqoto mid caata ah amaba weyd ah fahiya iyadu tuxibu alakla waxay jeceshahay
cunitaanka ayay jeceshahay. akhadat maryam waxay guda gashay ta'kulu inay cunto kathiiran in fara badan inay wax cunto. fazaada wasnuhaa miisaankeedii ayaa kordhay walam yanqus mana usan nusqaamin. maanta cashirkeena intaas ayaan ku gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.